Soomaaliya maanta magaalada Muqdisho waxaa ka furmaya xisbigii ugu weynaa waxaana ka qaybgalaya madax kala duwan oo ah kuwa hadda xilka ka haya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ku yaala. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goobjoog noqon doona sida ay wararku sheegayaan. Haddii uusan goobjoog noqonina waxa uu xubin ka ahaan doonaa sare waliba murashax ah hogaamiyana ah xisbiga lagu dhawaaqi doono oo lagu magacaabo cadaaladda iyo wadajirka. sidoo kale xisbigaasi waxaa qayb ka ah si aan wararkayna hore ugu sheegnay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa kaloo qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha saddex maamul goboleed oo kala ah Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle. waxay wararku tilmaamaan ayaga inay goobjoog noqon doonaan. wararka kale waxay kaloo ay warinayaan in sidoo kale uu xisbigaasi goobjoog ka noqon doono xubin uu ka yahay hogaamiyaha Sii Khaatuma ninka lagu magacaabo Firdhiye iyo mas'uuliyiin kale. ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aad u diidan ilaa waqtigan waa una rabaa xisbiga laakiin shuruudo ayaa jira oo saacadii ugu dambeeyay ee maanta iyo xalaba oo soo bandhigay. shuruudu waxa weeyaan in la siiyo gudoomiyaha xisbiga isaga ama beeshiis ama wuxuu kale ku talinayaa in la siiyo xogeyaha xisbiga si gaar ah xogeyaha xisbiga ayuu raadinayaa in isaga loo magacaabo ama uu xubintaas helo ayuu rabaa ama gudoomiyaha xisbiga. waxay wararku tilmaamayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisna inay gudoomiyaha xisbiga la rabaan Ra'iisul Wasaaraha talada haya Xamse Cabdi Barre xogeyaha xisbigana ay la rabaan ninka hadda ku fadhiya oo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa. ujeedada oo Laftagareen u raadinaya labadaas jago waa hal ujeedo ah inuu joogo meesha wax lagu karkarinayo go'aanada xisbiga lagu gaarayo si kursigiisa uu ilaashado oo Koonfur Galbeed ah. si guud sababta xisbigan loo aasaasayna waxa weeye in ay madaxdaasi maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe wadajir si ahaadaan mid kastana kan kale oo ka shaqeeyo sidii uu jagada ama kursiga hadda hayo ugu sii fadhin lahaa. ujeedooyinkaas ugu waaweyn waxaana loo weeyaan waxa ugu weyn maanta ama warka ugu weyn maanta magaalada Muqdisho laga filayo. laakiin haddii xisbigan ay ku dhawaaqaan ay ka soo wada muuqdaan mucaaradka kaas waxa ugu jirta fursad fiican taasi oo ah in madaxdii dalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ay dhammaantoodba noqon doonaan hal xisbi taasoo keeni doonto in beesha caalamka iyo Soomaalidu ay fahmaan in hal xisbi go'aan ka gaari karin mustaqbalka Soomaaliya ee loo baahan doono dhinacyo kale oo la jaangooya mustaqbalka dalka si danahooda oo kaliya aysan wax walba ugu ekayn. wixii hadda ka dambeeyo 15 bisha May oo 3 sano ay u dhamaan doonto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano ay u bilaaban doonto dalku wuxuu gali doonaa xaalad crisis ah. magaalada Muqdisho waxaa isugu tagi doona dhammaan xubnaha mucaaradka ah sida madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Axmed oo hadda jooga iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sugayo iyo xubnaha kale ee mucaaradka sida Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin kale oo qaarkood hadda ay joogaan qaar kale ay ka maqan yihiin oo ka mid yahay Cabdi Faarax Shaqtoon Saacid ra'iisul hore ee dalka oo murashax madaxweyne inuu yahay ku dhawaaqay maalin Muqdisho ku sugnaa haddana wadanka dibadiisa u laabtay. wararkaas magaalada Muqdisho ka cusub wixii warar ku soo kordhay sheekooyina waxay ku soo gudbi doonaa wararkeena barnaamijyada dambe insha Allah. xisbigan iyo maanta marka lagu dhawaaqana waan arki doonaa natiijada ka soo baxda inta xubnooda ka soo muuqato iyo inta ka harta tareenka oo hadda wali la isku haysto xilooyinka ama jagooyinka ugu muhiimsan oo si gaar ah waliba tabashooyin u qabaan reer Koonfur Galbeed oo xal mar ay ku sugteen inay ka baxaan xisbiga. Laftagareen shuruudaha hor yaalla ama shuruudo hor dhigaya Xasan Sheekh wuxuu rabaa shuruudaas inuu qaato shuruud la'aan si uusan Laftagareen uga degin tareenkiisa. dhinacyada kale toodna waa aamusan wax shuruudaha ma qabaan waxay ku qanacsan yihiin xisbi ka mid noqdaan iyo inay sii joogaan jagooyinkooda. laakiin ugu dambeyntii waan eegaynaa maanta iyo waxa ay natiijada ku soo biisho haddii Allah uu doono. ma aad maasanta aragtidaada xisbigan wuxuu ka bedeli doonaa xaalad siyaasadeed ee Soomaaliya ma loo baahan doonaa dhinacyo kale oo siyaasadeed oo go'aanada masiiriga wax ka gaara maadaama hadda goorihii madasha wadatashiga qaran ee NCC la oran jiray hal xisbi noqdeen ayagoo markii horeba dhaliilo kala wajahayo ah inay isku aragti yihiin. isla Muqdisho inta aan ka bixin waxaa ka dhacay qaraxyo miinooyin ah oo dhulka la geliyay xiriir ciidan ama goobo bar control ah oo ciidamo ku sugnaayeen ayaa qaraxyada la geliyay dhimasho iyo dhaawac ilaa hadda dhimasho lama soo warin laakiin dhaawacyo ayaa la soo wariyay wadajir iyo yaaqshid ayayna ka kala dhaceen adaa ammaanku xishay inay hayeen miinooyin dhulka la geliyay. waa markii ugu horeysay muddo bilowna kadib oo qaraxyada Muqdisho laga maqlayo dadka Muqdishona aad ayuu u saameeyay qaraxyadaas maadaama waayadaanba ay jawi nabdoon oo nabadgelyo ay ku jireen kaliya ay la daala dhacay madaafiicda la soo tuuro meelo kamid magaalada gudaheeda ah laakiin qaraxyada dhulka la geliyo kuwa tooska ah magaalada way ka nabdooneed sanadii la soo dhaaf. hadda dhaawacyo jira oo ciidanka dawladda soo gaaray oo meelo ay deganayeen qaraxaas la geliyay iyadana hadda way dukantaa sida guud xaaladda magaalada way warar ku soo kordha sheekooyinkeena dambe ayaa ku daawan doontaan insha Allah. hada waa maasantiin.